kala taagnaan ku wajahan soo afjaridda howlgalka ciidan ee midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dalalka ciidamadu ay ka joogaan gudaha dalka. Labada dhinac waxa ay kala wataan qorshooyin iska soo horjeeda, inkastoo ay jiraan qodobo ay isku waafaqsan yihiin oo haddana fulintooda aysan daacad ka wada ahayn, sida ay muujinayaan macluumaadka laga helayo dhammaan darafyada. dawladda Soomaaliya tan iyo sanadkii 2018 waxay waday qorshaha la wareegidda amnigeeda qaranka, waxayna xoogga saaraysay sidii dalalka Afrika ay ugala shaqayn lahaayeen Soomaalida inay amnigooda ku filnaadaan si looga baxo doodaha la xiriira amniga dalkan dagaalada ka soo kabanaya. ha yeeshee dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa ka walacsan qorshaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya. marar badanna waxaa lagu eedeynayaa inaysan wadamada shisheeye daacad ka ahayn tallaabadaas. tallaabo qaadka soo bilowday 2018 waxa uu qorshuhu ahaa in 2020 ciidamada shisheeye ay ka baxaan Soomaaliya, balse dhinacyada Soomaalida oo aan isaaminsaneyn iyo qodobada la wareegidda amniga qaranka ayaa dood cusub iyo fursad u abuuray dawladaha shisheeye. bilihii la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in qorshihiisa hortebintana ay qayb ka tahay in ciidanka shisheeye laga saaro dalka, ciidamada Soomaaliduna ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga qaranka. laakiin doodda iyo sida ay dhinacyadu ugu kala fog yihiin ayaa mar kale soo shacbaxaysa. madaxweyne xasan sheekh mar kale toddobaadkii hore waxa uu ku celiyay in December 2024 askariga u dambeeyay ee shisheeye Soomaaliya ay macsalaameyn doonto. waa dhawaaq naadir marka laga hadlayo arrimaha murugsan ee amniga dalka, gaar ahaan la dagaalanka kuwa nabadda diidan iyo ku tiirsanaanta dawladda ee ciidanka shisheeye. ficilada iyo hadallada iskhilaafsan ee fiila Soomaaliya 18 bilood ee nagu soo aadan ayuu sheegay madaxweynuhu inay ka shaqeynayaan sida ay ciidamada xoogga dalku u noqon lahaayeen kuwa la wareega mas'uuliyadda amniga dalkooda. laakiin ficilka madaxweynaha iyo hadalladiisa ayaa iska hor imaanaya marka la eego habsocodka iyo dhaqaaqyada yaalla masraxa ka shaqeynta howlaha amniga qaranka. qorshaha madaxtooyada federaalka ee dib u dhiska ciidanka xoogga dalka waxa ka soo laabanaya su'aalo waaweyn oo aysan fiiladu jawaabo u haynin. sida ilaa hadda loo maareeyay galka ciidamada ayaa muujinaya ficilka iyo dhawaaqa dawladdu inuu kala duwan yahay. madaxtooyada waxa ay u aragtaa in qorshaha qoridda ciidanka Imaaraadka Carabta uga qoranayo gudaha Soomaaliya ciidan isaga u daacada oo uu leeyahay maamulidiisa mid dan u ah dawladda federaalka laguna wareegi karo amniga dalka. laakiin taas waxaa diidan waaqaca ka abuuran gudaha dalka iyo ficillo hore oo hore looga soo jaabiyay dalal kala duwan oo xaaladda Soomaaliya ka sii durugsan. hannaanka loo maareeyay ciidamada ay tababareen dawladaha Turkiga iyo Eritrea ee la geeyay Soomaaliya bilihii la soo dhaafay waxa uu muujinayaa walaaca inaysan dawladda federaalku hadda dhab iyo daacad ka ahayn qorshaha amniga qaranka, taa beddelkeeda ay mashruucan u aragto mid dhaqaale laga samayn karo. dhammaadkii bishii la soo dhaafay ee Juun ayay ahayd in ciidaman dhan 2,000 oo ka mid ah kuwa shisheeye ee midowga Afrika inay ka dhoofaan Muqdisho. inkastoo sida xoguhu tilmaamayaan la dhammaystiray hannaanka bixidda, haddana weli looma dhaqaaqin tallaabada ugu dambeysay ee diyaarad saaridda, iyadoo weliba ay imaanayaan xogaha inay Uganda bilowday keenidda ciidan cusub oo beddel ah. madaxda dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya oo ciidankooda diidan in la saaro. madaxda sare ee dalalka ciidamadu ka joogaan dalkan ayaa u muuqda kuwa istaraatiijiyad durugsan kale arrimaha amniga ee Soomaaliya. waxay ciyaarayaan doorka inaan weli la gaarin waqtiga ay ka bixi lahaayeen Soomaaliya oo ay wareejin lahaayeen mas'uuliyadda amniga qaranka. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu sheegay dhawaan in diyaaradaha iswada uu soo iibinayaan ciidamadooda ku sugan Soomaaliya si ay waardiyo uga qabtaan xeryaha ciidanka military ee Uganda kadib weerarkii Buulamareer oo ay qiratay Kampala in ciidankeeda uu jab ka soo gaaray. madaxweyne geelaha Djibouti iyo William Ruto Kenya maalmo ka hor Djibouti waxa ay ka sheegeen inay si wada jira howlgalkan inaan la soo afjarin oo la sii wado meel dalkiisana la sugo kadib 15 sano oo joogitaan ah oo ay balaayiin dollar ku qaateen magaca Soomaaliya. sidaas oo kale wadamada safka hore Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxa dhawaan la saxay inay Soomaaliya soo galiyaan kumanaan kun oo askari oo ciidamadooda si ay qayb uga noqdaan howlgalka la dagaalanka argagixisada, kaas oo waqtiga uu dhamaanayo isna aan la jaangoynin. Soomaaliya midaysan oo amnigeeda hanata. dawladda Soomaaliya iyo hogaamiyaasha siyaasadda waxa hor yaalla imtixaanka inay isku raacaan in ciidamada shisheeye laga maarmo si isku filnaansho amni loo helo. dad badan ayaana aaminsan in haddii aan galka amniga heshiis rasmi ah iyo isku tiirsanaan Soomaalida leedahay laga gaarin ay adkaan doonto taabagelinta dawladnimada dalkan. madaxda Soomaalidu waxay u muuqdaan kuwa ku qanacsan waardiye kahinta ciidamada shisheeye
si iyaguna u urursadaan malaayiin dollar oo aan la aqoonin halka lagu isticmaali doono. laakiin taas hadda waqtigeeda ayaa gabagaba ku dhow. xataa haddii aysan ka shaqaynin madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya, waxaa soo degdegaya su'aalo waaweyn oo ku wajahan dalalka ciidamadan lacagta siiya oo iyaga laftirkooda hadda haysato dhibaatooyin waaweyn oo kaga furan gudaha dalalkooda iyo amniga guud ee caalamka oo siyaabo kala duwan siyaasadeedu ay isku bedelayso. ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho. dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu fulin doonaa dhammaan qalliimada guud iyo kuwa casriga ah ee laserka